maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko ayaa waxa uu bulshada caasimadda Hargeysa ugu baaqay isla markaana ugu bushaareeyay inay soo gaadhay daamirkii ugu badnaa abid ay dawladda hoose caasimadda Hargeysa soo iibsato kaas oo loogu talagalay dhisidda iyo bilicda caasimadda Hargeysa wadooyinkeeda dhexmara. Maayirka ayaa hadalkan ka sheegay maruu maanta soo kormeerayay wadooyinka halbowlaha u ah bartamaha suuqa caasimadda Hargeysa oo ay ka socoto banaynta iyo dayactirka wadooyinkaasi. shacbiga caasimadda waxaan ugu bushaareynaya in daamirkii ugu badnaa ee abid dawladda hoose soo iibsato oo ah 35 kontiinar iyo 30 kontiinar 60 kontiinar inay soo gaareen magaalada Hargeysa. shaqooyinkii wadooyinka oo dhan lagu wadi doono waxaan leeyahay dhinaciina haday ka baxda mooyaane dhinaca dawladda hoose waa ka diyaar. wadooyinka suuqa ka bilaawa wada kasto xaafadeed baa ka bilaawa kuwiil kabkabay baa ka bilaawa. waxaan leeyahay dadku inay wax la qabsadaan dawladooda hoose ayaa wax lagu noqon karaa. waxa halkan ka socday ololihii suuqa dhexe qaybta koobaad oo lagu baneynayo qaybta labada wado u dhaxaysa wadada number 1 iyo wadada number 2 ga fayskaas oo ay Britoolomino hadhayo ay qaybtii ugu dambeysay hadhay oo ku soo gaboobi doona halka iyadoo la sameyn doono in dhismihii wadooyinkaasina ay ku xigaan. dhanka kale maayirka caasimadda Hargeysa ayaa fariin u diray ganacsatada ka agdhowdhow suuqa isla markaana ku ganacsada wadooyinka bartamahooda. waxaanu maayirku sheegay inay sameynayaan wadooyin qurux badan oo bilicsan isla markaana dhexmara bartamaha caasimadda Hargeysa. waxaanu u baahannahay waa la baneeyay imika dad baan arkaya gawaadhi alaab ku dhex sita dad baan arkaya caynka waxaan arkayaa kuwa meeradooda sii danaynaya wajahadooda kareyn jireen. waxa la ganaaxi doonaa sida sharcigu ku yaala maanta markaanu saa u banaynay number bay yeelanaysaa dawladda hoose number ka meerada ka soo hadli weyda ee horteeda wax la dhigo iyada lagu ganaaxaya. anagu kareynaa mayno qofka wajahadiisa kareynaya ayaan wax ka qaban doonaa. waxaan leeyahay dadka in wada shaqayn iyo magaalo qurux badan ay noo hirgasho aynu samayno. in badan waa isla saagnay wixii suurtagal waan isla ogol lahay laakiin wixii saayida isla moogulin xaraadhuudha baahi way taala laakiin se laamidan kalena aynu ka wada dhigano wada la wada istaago ma soconayso. haddii aynu meelihiisa ribadaha u xidhnay dadkii waxa weeyaan iyo shiraaqle ma noqonayso. halkaana imika suuqa bacadlaha marka halka la dhameeyo suuqa bacadlahana weyn wadooyinkiisa la wada baneeyo noqon mayso in hantida quraarkiisa haysataa ay ku dudunto qof wada taagan oo kaagyoona. maayirka caasimadda Hargeysa ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay sameeyeen maamul daadi isla markaana ay shaqadoodu tahay inay soo kormeeraan mas'uuliyiintaasi. waxaan halkan uga mahadnaqayaa maamul daadajin baanu sameynay agaasimayaashii iyo gudoomiyeyaashii way soo kala bixi doonaan. annagu shaqada kormeer iyo waxaan ku leenahay imika iyo dabajoog iyo maxaa qabateen shaqadiina waxaan u dhiligeedgeeyno oo u wareejinay in agaasimayaasha iyo gudoomiyeyaashu qabtaan. nin walba xaafadiisa lagula xisaabtami doonaa nin walba waaxdiisa lagula xisaabtami doonaa. waxay noqon doontaa shaqadii maamulku inaan xagga dusha loogu imanay hoos qof walba halkiisa iyo xaafadiisa loogu tago. waxaan leeyahay dadweynahana inaad la shaqaysaan gudoomiyeyaasha inaad furataan in wixii ay amraan inaad shaqadii wadooyinkana xaafadaha laga soo dhiso. wabillahi tawfiiq. aad baa mahadsantihiin. Axmed Daahir Nuux, Nasabka Star TV, Hargeysa.